سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا كحران كنال كان عافيماتك دكتورك عافيماتك qoyska ku soo dhawaada waqtiguna haydin wacnaado وعشردeenii caafimaadka mid kamid ayaynu soo qaadanaynaa maanta waxyeelada ama halista caafimaad ee laga dhaxlo haweeneyda oo isticmaashay farteeda iyadoo u isticmaalaysa xubinka taranka. arrintaas ayaynu doonaynaa dabcan waqti kooban inaynu istu taagno oo iminka ugub ku ah ama runtii ku soo badanaysa adduunka guud ahaanba gaar ahaan geyga Soomaalidana sida dhakhaatiirta qaarkood kuwa gynecology-gu ay report gareynayaan ama ay record gareynayaan ay jiraan kiisas badan oo arrintaasu ay haween badan ay liciifisay ama ay dhibaatooyin waaweyn soo gaarsiisay. haddaba arrintaas aynu talo dabcan iska siin doonaa iyo qaababka ay u dhacdo iyo haweeneydu waxyaabaha ay ka dhaxasho. haweeneydu marka koowaad arrintani waxay kaga bilaabantaa iyadoo oo xubinkeeda taranka taabsiinaysa ama gacanteeda dabcan marka hore faraha taabsiinaysa. taas ayaa waxay la qabatintaa in ay runtii ay ka hesho wax la yiraahdo sense ama dareen ay ka qaadato oo marka dambe ay ku sii wato ilaa heer ay gaadho inay u isticmaashay inay iskaga soo dayso biyaheeda taranka. arrintaasi waxay markaa haweeneyda dhaxasiisaa inay noqoto psychotic macnaheedu waxa weeyaan inay la qabatinto oo gacantii xilli kasta iyo goor kasta ay isticmaasho waliba iyaga oo ka imanayaan biyaha taranku. arrintaasi waxay ku abuurtay haweeneydu marka ay ficilka ay doonayso way u faraxsan tahay way raadinaysaa ilaa inta ay samaynayso xiise badan bay u haysaa. ha yeeshee markay samayso ama ay ka yimaadaan biyaha taranku waxa ku dhaca wax la yiraahdo absid warwar walbahaar isla markaana waxay dareentaa awood darri fara badan way daashaa oo way tabcaantaa. warwarka soo food saaraa wuxuu noqdaa mid inta badan shucuurteeda iyo spiritual naf ahaan aad u dhaawaca oo ay tiraahdo qof fiican ma tihid waxun baa samaynaysaa. waliba haddii ay muslim tahay haweeneydu waxay sii canaanataa arrintan ay ku jirtaa inay tahay arrin fool xun oo diin ahaan iyo caafimaad ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan midna aanu fiicnayn. taasina waxay ku ritaa haweeneyda inay noqoto haweeney murugo la nool oo runtii murugo ku nool oo murugo la saaxiiba ama murugo leh ehela oo xilli kasta iyo goor kastaba daalan oo runtii ku abuuran nolosheeduba inay tahay nolol frustrated ah oo dhibaataysan. arrintaas ayay ka dhaxashaa dhinaca caafimaadka. kaas waa psychology iyo dhinaca caafimaadka markaynu ka eegno timuhu way ka bidaan aragga indhaha ayaa ka taga awoodeeda ayaa lunta oo inta badan awood ahaan qof tamar leh maaha. dhinaca guurkana way runtii kala baadaan haddii ay arrintaa la sii socoto oo guur uma baahnaba ee gacanteeda ayay ni ka dhigataa. arrintaa runtii foosha xun baynu ka wacyigelinaynaa bulshadeena waxyeelada caafimaad iyo mid maskaxeed iyo mid akhlaaqiyaad intaba u foosha xun. inahaas ayaynu ku soo ururinaynaa casharkeena maanta. subscribe-ka ku suubiya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.